السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا قيمها إيا قايها بدن halkan aad nagala socotaan waa kanaalka Axmi Kadiye haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe dheh waadna mahadsan tahay mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay qaadashada dhalashada Jarmalka waxaan si faahfaahsan uga sii hadli doonaa shuruudaha qofka laga rabo iyo qaabka uu qofka ku xareysan karo sharciga weyn warqad sanadkan bilowgiisa baarlamaanka Jarmalka ka soo baxday oo jawaab u ahayd su'aal uu xisbiga bidixa ee dilinka watay ayaa lagu sheegay in bishii November 2019 dhamaadkeeda ay dalkan deganaayeen Soomaali tira ahaan 45125 qof lagu qiyaasay kuwaasoo aanan baasaboorka weyn ee Jarmalka haysan tiradaasi kuma jiraan Soomaalida tira ahaanta yar ee baasaboorka weyn haysato marka halkaasi waxaad ka dareemaysaa in Soomaalida dalkan degan ee sanadkan lagu jiro ama sanadahan soo socdaba baasaboorka Jarmalka ee weyn dalban doona inay aad u badan yihiin waana sababta aan mowduucan maanta u soo qaadanay intaasi haddii aan horudhacaasi yar uga gudbo sida Yurubta kaleba ka jirto dalkan Jarmalkana qofka ajnabiga ah xaq ayuu u leeyahay inuu baasaboorka Jarmalka ee weyn dalbado haddii uu shuruudaha loogu talagalay ee dastuuriga ah buuxiyo inta aanan shuruudaha u gudbinna muxuu baasaboorka Jarmalka ah qofka u faa'iideynayaa ama ka anfacayaa qofku wuxuu u ogolaanayaa inuu sida muwaadiniinta kale ee Jarmalka ah siyaasadda dalkan ka qayb qaato codkiisana ka dhiibto doorashooyinka dalka iyo tan Yurub qofku wuxuu fursad u helayaa inuu 189 wadan oo dalalka dunida ku yaala kamid ah uu fiisa la'aan u safro caadi ahaanna baasaboorka Jarmalka wuxuu ku jiraa baasaboorada ugu awoodda badan dunida kaalin ahaanna wuxuu ku jiraa tan saddexaad oo waxa ka awood badan xilligan baasaboorada Japan iyo Singapore oo kaliya qofku wuxuu xaq u helayaa ximaayada ama badbaadada safaaradaha Jarmalka haddii asigoo dibadda jooga uu dhibaato la kulmo markaana aan u gudbo shuruudaha baasaboorka lagu dalban karo waa inuu qof dalkan deganaasho ku haysto mid qaxootinimo mid bini'aadanimo amaba mid guur waxay ahaataba qasab ma ahan deganaashada mid daa'im ah amaba mid abadi ah inay ahaato deganaashaha baasaboorka saaran ee 2 sano amaba 3 sanaba mar la cusboonaysiinayo xataa waa caadi waa inuu qofku dalkan muddo 8 sano gaaraysa degnaadaa oo muddadaasi waqti kamid ah oo badan banaanka dalka uusan ku maqnaan muddadaasi waxay ka soo bilaabmaysaa maalintii ugu horeysay ee uu qofku dalkan Jarmalka yimid ama la keenay haddii uu qofka inta uu dalkan joogay uu duldul amaba deganaasho iska noolaasho ah qaatayna waxa waqtigiisa ka jarmayo muddadii uu qofka duldun ka haystay dhanka kale waxaa jiro dad 8 sano ka yar ku dalban kara sharciga weyn gadaal ayaan ka faahfaahin doonaa arrinkaas shuruuda saddexaad waa inuu qofku ugu yaraan haystaa shahaadada luqadda ee B1 shahaadada luqadda Jarmalka ee B1 ah sidoo kalena ku baasay imtixaanka Einbürgerungstestiga ah waa inuu qofku wax dambi ah dalkan ka gelin waa inuu qofku bil ahaan isku filan yahay gaar ahaan 3 bil ee ugu dambeysay inta uusan sharciga weyn dalban wax ceyr ah amaba mucaawino ah uusan dawladda ka qaadan qofkii arday iskooley amaba jaamacad dhigta ah waa ka gooni arrinkaas qofkaasi waa loo ogol yahay in asigoo dawladda biilka helaya uu sharciga weyn naxariisto waa inuu qofku aqbalaa dastuurka Jarmalka iyo dimuqraadiyadda dalkan intaasi waa shuruudaha lacagta baasaboorka lagu xareysanayana waqti xaadirkan waa 255 euro dadka waaweyn caruurta yaryarna 51 euro dhanka muddada 8 sano ah ee aan kor ku xusay dadka qaar muddo ka yar ayay ku xareysan karaan tusaale shahaadada luqadda ee B2 ama B2 haddii aad haysatid waxaad awoodaa inaad 6 sano dalkan markaad joogtid aad baasaboorka weyn ba xareysato haddii qof dhalashada Jarmalka haysta aad qabtid ama uu ku qabana waa inaad ugu yaraan 2 sano guur dalkan laga aqoonsan yahay isku qabtaan sidoo kalena dalkan aad joogtid ugu yaraan 3 sano intaasi aan shuruudaha uga gudbo sidee ayuu qofku ku xareysan karaa sharciga weyn haddii aad marba shuruudaha buuxisay xaq ayaad u leedahay inaad dalbato sharciga weyn markii hal gobol laga reebo kaasina waa gobolka Hessen oo u baahan inaad Soomaalinimadaada cadeyso waan u soo laabanaynaa shuruudaha dheeraadka ah ee gobolka Hessen haddii aad shuruudaha buuxisay waxaad ballan ka qabsanaysaa xarunta looga taliyo magaaladaada ama degmadaada micnaha Rathauskaaga
maalinta aad balanta qabsatayna waxaad horay u soo qaadanaysaa ID kaarkaaga iyo baasaboorkaaga, warqad mushaaraadkaaga iyo inaad isku filan tahay caddaynayso, gaar ahaan warqad xisaabaadka mushaaraadka ee 3 bil ee markaasi ugu dambeysay. amaba haddii aad arday tahay waxaad soo qaadanaysaa warqadda lacagta ardayda ee baafogta ah, shahaadada luqadda ee tan B-Insta ay ugu yar tahay, wax ka sareeya haddii aad haysatidna waa wanaag, shahaadada imtixaanka Einbürgerungstestiga, shahaado iskuul ama mid jaamacad oo aad dalkan ka samaysay haddii ay jirto amaba jiraan, ayagana soo qaado. intaasi marka aad meesha la tagtid waxay ka dhigan tahay caddayn ah inaad shuruudaha buuxisay, kadibna waxaa lagu soo siinayaa foomkii lagu xareysan lahaa sharciga weyn. foomka ayaad guriga u soo qaadanaysaa oo aad buuxinaysaa, kadibna balan kale ayaad qabsanaysaa oo foomka dhiibiddiisa ama celintiisa ah. balantaasi marka aad qabsatid ayaa dukumeentiyadii shuruudo ahaanta lagaaga rabay dhan soo qaadaysaa si lagaaga koobiyeeyo, kadibna sidaas ayaadba ku xareysay sharciga weyn. maalmo kadib waxaa kuu imaanayo warqad boosta ah oo lagaaga rabo inaad ku bixisid lacag 255 euro ah. waa lacagta lagu xareynayo sharciga weyn ee dadka waaweyn inta ay hadda marayso. kadibna waxaa lala xiriirayaa maxkamadaha, booliiska iyo meel walba si loo hubiyo inaad dalkan aadan dambi ka gelin. ugu dambeynna waxaa lala xiriirayaa xafiiska ajaanibta si loo hubiyo inaad muddadaas dalka joogtay iyo inaadan waqti badan ka maqnayn. kadibna waxay u badan tahay wax kaloo lagugu diido haddii aysan meesha ku jirin in lagu soo diro warqad go'aan ah oo sheegaysa in waqtigaasi wixii ka bilowdo aad Jarmal tahay, baasaboorkaaga Jarmalkana aad xareysan karto. intaasi waa gobolada kale. gobolka Hessen haddii aad joogtid waxaa kuu sii dheer inaad Soomaalinimadaada caddaysid. baasaboorka Soomaaliga haddii aad safaaradda Berlin ka keentid lagama aqbalayo. waxaa lagugu qasbayaa in qof waalidkaaga ah amaba walaalo aad tihiin oo Yurub iyo Mareykan jooga oo sharci weyn haysta haddii uu jiro inaad dhacaan DNA ah ka soo qaadid, adigana iska qaadid oo ay warqad caddeyn ahna ku qoraan inaad wax isku tihiin iyo in waxa aad sheegaysid sida magacaaga iyo da'daada ay sax yihiin. taasi waa shuruud iska dheeraad ah oo caqabad ku haysa Soomaali badan oo gobolka Hessen degan, gaar ahaan Soomaalida magaalada Kassel degan. balse intaasi haddii aad buuxisid ayagana waxay u badan tahay sharcigaaga weyn inaad ka heshid. intaas ayaan ku soo koobayaa. waa Axmed Kadiye oo khayr badan idiin rajeynaya. kanaalka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe dheh, waadna mahadsan tahay. ciao.